بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الكسو دوادا برنامج كبندقة محدثتيلا وإذن كجي معنا يا مجالدا جوهانسبرغ دلكا كوفر أفريقيا. برنامج كان وعن عاوة إذن كوسو قد دورنا حالة ورياش الصوماليات جارهان كوفر أفريقيا. أيها إذن كجي معنا يا ويب كايفية media.com. برنامج كان سو قد بنتيسا وحق عنك جيستي هوتيل كانورا international ee magaalada Johannesburg koonfur Afrika waxa sidoo kale gacan naga siiyay soo gudbinta barnaamijkani shirkadda Salama Cash and Carry ee magaalada Johannesburg ee dalka koonfur Afrika. barnaamijkan caawa waxay nagala qayb qaadanayaan wariyaasha kale ah Cabdullaahi Maxamed Cumar Balwaan iyo Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir saxan saxo oo kamid ah wariyaasha ku nool magaalada Johannesburg ee dalka koonfur Afrika. وهرين وحن كوب اللعبة إن عبدالناصر أحمد شيخ بشير ودين عيقا ميدك فردية وعن ويدينه عبدالناصر كورن حالة إن الشقو ودهان ورياش الصومالية مركز تيجوبا ما هذا وما هاي ما كانوا صلاة سؤال شاذ حالة الشقو ورياش ودهان الصومالية مركز تيجوبا horta waa mid liidata hal sabab oo weyn ayay leedahay sababtaasina waa burburkii qarankii Soomaaliyeed oo ay wax kasta la burbureen iyadoo oo horey u sii jirtay taariikh lama hilmaamaan ah oo buugga taariikhda beelbadu ka gashay oo ah heerka xorriyadda qowlka ee Soomaaliya oo weligeed aan la fasaxin dalka wuxuu lahaa jiray hal jaraa'id oo xiddigta Oktoobar iyo Radio Muqdisho cid kale oo inta ka baxsan looma ogolayn in ay barnaamij saxaafadeed ka hadasho marka waxaad dareemi kartaa xuquuqda hadalka sida loo cadaadin jiray markii dawladii ay dhacdayna dadkii soo baxay hawsha saxaafadda ku soo baxayna waxay la kulmeen dhaqaale burbursan warbaahin rasmi ah oo mushaaraad bixiso oo aanan jirin iyo tacadiyo istaba joog ah oo dad aan u baahnayn in runta la sheego marka taa waxay saameyn aan la malaysan karin ku yeelatay saxafiyiinta dad badan oo saxafiyiin ah waxay ku kaliftay inay shaqadooda joojiyaan qofka saxafiga ah saxaafaddu waa mihnad 24 saac ay tahay inaad waqtigaaga u hurtid sida ninka ganacsadaha ah sida ninka injineerka ah sida ninka macallinka ah sida ninka duuliyaha ah sida ninka dhakhtarka ah oo kale waa mihnad 24 saac ay tahay inaad hawshaada u gashid marka adigu waxaad leedahay qoys nolol baad leedahay waxaad u baahan tahay wax nolosha ka dabaa haddii Soomaaliya aysan jirin marka dhaqaale dhisan oo warbaahintii u suuragelinaya inay shaqaalaheedii ay mushaaraad wanaagsan siiso taa waxay ka dhiftay in dad badan oo mihnada saxaafadda ku jiray inay mihnada saxaafadda iska dhaafaan dad badan oo xitaa shahaadooyin sare ka haysta saxaafadda inay hadda guryahooda iska fadhiyaan ama shaqooyin kale oo aan u qalmin ay hayaan waxaa kaloo jirta dad badan oo jeclaan lahaa inay saxaafadda bartaan waxna ku soo kordhiyaan ay ka niyad jabeen marka shaqada aad bilowdo maxaad heli doontaa shaqadaada maxaa dhiirigelin doona mushaar ma heli doontaa marka qofka su'aalahaasi oo dhan uu ka jawaabi waayo waxay noqonaysaa in qofkii uu shaqada joojiyo marka xaaladda shaqo ee wariyaasha guud ahaan gaar ahaan koonfur Afrika iyo meel kasta oo la mid ah waa sidaa marka waxaa la dhihi karaa wariyaashu waxay muujiyeen dhabar adeeg waxay muujiyeen niyad wanaag waxay muujiyeen shaqo badni sababtoo ah waxaad garanaysaa wariye aanan haysanin waxyaalihii daruuriga nolosha u ahaa aanan haysanin haddana shaqaynaya oo wax qabanaya dhaliilo badan ha jireen dadka ha dhaliileen haddana qof intaasoo dhan haddana aan haysanin haddana hawshii qabanaya waad garanaysaa dhabar adeega iyo halyeelnimada ku jirta Cabdullaahi Maxamed Cumar adiguna maxay kula tahay xaaladda shaqo ee wariyaasha Soomaaliyeed guud ahaan annagoona u soo gudbi doonaa kuwa South Africa laakiin ugu horreyn bal aan ka hadalno
guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed maadaama aan intaana badan ka wada shaqeynayay gudaha Soomaaliya ma hadda baad u mahadsan tahay adiga iyo Cabdinaasir inta markaan ka gudbo saxaafad marka la yiraahdo runtii waa masrax marba dhinac loogu cayaaro marna dhib baa kaasoo wajahan rasuul saaxiibka Cabdinaasir uu sheegay dhibaatooyin kale noloshaada gaarku ay qoyskaaga ayaa kaasoo wajahan kara ma hadda wadiyaan dib u xusuusiyo daawadayaasha saxaafadda Soomaaliya waxay si toos ah u xanaqaaday wixii ka dambeeyay 1990kii sanadkii 1999kii oo aan ka mid ahayn wariyaashii ka howlgalayay magaalada Muqdisho waxaan xusi karaa muddo dhowr iyo 10 sano kadib in maalintii ugu horreysay saxaafadda aan soo galay lagu yiri saxaafaddu ma laha jeeb qoyan waxay leedahay magac qoyan waxaan kaloo isweydiiyay su'aal ah maxaa loola jeedaa muddo dheer ay igu qaadatay jawaabtaas inaan raadiyo markii ugu dambeysay ayaa saaxiibkay tafatire ka ahaa idaacadda iyo telefishinka STN muddadaasi aan ka shaqo bilownay sanadii 2000 Cabdinaasir Maxamed Cumar Zero wuxuu yiri meeshii aad ku qoydo waa lagu qalabsanaa waxaan isweydiiyay markii su'aal labaad oo ahayd maxaa loola jeedaa wuxuu yiri abaar kadib ayaan kaaga jawaabi doonaa waxaan ogaaday kadib jawaabtii inay fududaato lagu yiri madaxda idaacaddu waxay tixgelinaysaa magaca saxafiga uu ka horeeyay magaca warbaahinta markaas ayaa waxa bilowday tacadigaasi wuxuu socday muddo dheer oo waxa ay ka timid maamulkii idaacadaha habar ugu horeeyay idaacaddii ugu horeysay aan ka xusi karo Muqdisho ka xanaqaaday ayaa waxay horseed u noqotay in mas'uul kasta oo warbaahin furaya oo wariyaha naftiisa ka hormariyo magacii shirkadda inta kadib dadaalkeenu wuxuu noqday mid aynu ku dhex kornay ama aynu ku dhex dhaqanay dal fawda ah waxa kaloo cajiib ah oo saxafiyiinta haysta maadooyinka stilo aan caaw ka shaqarinayo saaxiibadan meel walba ay joogaan ay ogaan karaan waxay tahay waxa lagu leeyahay markaad saxaafadda ku jirto run ha sheegin been ha sheegin waxa sheegtana ha weynin waxay noqotay marka mas'ale adag oo saxafiyiinta dhib ku noqotay waxa kaloo cajiib ah oo aan xusi karaa hordhaca ugu horeeyay saxaafadda Soomaaliya iyo dhibaatooyinkii magaalada Muqdisho aan ka xasuustaa waxay tahay qolay gruuba ayaa telefoon ku soo diraysa waxay ku leedahay waxaynu weerar ku qaadi doonaa goobtaasi ugu haddaadan sheegin naftaada maqan haddii aad sheegtana qoladii weerarka lagu qaado waxay leeyihiin saxafigu wuxuu ka mid ahaa qabanqaabayaashii weerarkii dhacay kooxdii ayuuna la shaqaynayay sheekadayna waxay noqotay qaarkood inay dhibaato adag ay noqoto waxaan kaloo xusi karaa dhibaatooyinkii xarigii Muqdisho waxaan ka mid ahaa wariyaashii ku jiray cad iyo madow oo noloshiisu ahayd marna nolol geeri u dhow marna badbaado u dhow taadiyadii waa loo soo laba doonaa laakiin saxaafadda meel walba ay jirto iyo si walba ay noloshoodu tahay waxaan dhihi karaa waqtigan waa waqtigii ay ka baxday dhibaatooyinkii hore ay ugu jirtay maxaad aad u soo waagaag halka aad barnaamijkani kala socotaani waa ifiamedia.com waxaana barnaamijkan soo gudbintiisa gacan ka geystay hotelka Nura International magaalada Johannesburg Koonfur Africa iyo sidoo kale shirkadda Salama Cash and Carry ka mid ah shirkadaha Soomaaliyeed ee ka jira dalka Koonfur Africa xadgudubka lagu sameeyo wariyaasha Soomaaliyeed guud ahaan haddii ahaan lahayd in la dilo haddii ahaan lahayd warbaahin ay u shaqeeyaan inay lacagtooda aysan siin maxay tahay doorkaas balaan Cabdinaasir ku hormaro Cabdullaahi Maxamed Cumar ma hadda arrinta tacadiga ah iyo hanjabaadda ma ahan mid hal iyo laba dhacday horena waxaan ka taabtay barnaamijkii ahaa markii ugu horeysayba in maqaalkii ugu horeeyay tacadiyada Soomaalida wariyaashooda laga qoray uu ahaa magac shaqo ku bedelasho barnaamijkaasi waxa uu aad uga hirgalay magaalada Muqdisho ilaa welina uu ka shaqeynayo taas oo saxafiga noloshiisii dib loo dhigayo oo lagu leeyahay ku bedela magac su'aashaas waxaan weydiiyay mas'uul ka tirsanaa warbaahinada Soomaaliya markaana hogaaminaya idaacad aan ka shaqeynayo wuxuu ugu yiri ma la socotaa $500 haddii aan ku siino oo aan mushaarkaada ka dhigno magaca kambanigiga oo ku siinayo ayaa $500 ka qaadaysan waxay ka bilaabatay taa waa laga soo gudbay waa taa hore kuu sheego run ha sheegin been ha sheegin waxa sheegtana haweenina waa lagu timid way ka sii xumaatay xaaladdu waxay isbedeshay markii saxafiga uu noqday bartii lagu dagaalamayay runtii saxaafaddu door wanaagsan ayaa bulshada Soomaaliyeed u haysay
laakiin waxaa burburka ugu xooggan oo naga soo gaaray mar labaadna aan cambaaraynayna maxaynu uga soo tagnaa dalkeena maxaa lagu kalifay inaan qurba ku noocaan annagu waxaynu ahayn indhihii bulshada makiinadii ka shaqaynaysa shacabka soomaaliyeed waxaa dhibkaasi oo dhan keenay siyaasadda soomaaliya oo marba isroogay dhanka kale maxay kula tahay xadiyada loo geystay ama xagga shaqada gaar ahaan dilka marka laga soo tago shirkadaha warbaahinta loo shaqeynayo cabdinaasir adiga aad u mahadsan tahay waa qodob muhiim ah inta badanna soo jiita dareenka adduunka ama caalamka soomaaliya waxay ka mid tahay lagu tilmaamaa meelaha ugu halista badan ee xorriyatul qowlka ama freedom of expression waxa la yidhaahdo dokumentariyada laga sameeyey iyo qoraalada laga sameeyey aad u badan yihiin sidaan hore u sheegay tacdiyada saxaafadda loo geysto wax hadda soo bilowda ma aha waxay soo bilowdeen markii uu kacaanka dalka ka dhashay kacaanka markuu dalka ka dhashay waxaa la diiday saxaafad xor ah oo dhan inay shaqayso horta waa tacadi koowaad oo wargeyska najmatul october ama xidigta october waxaa lagu soo qori jiray oo kaliya madaxweynaha oo xarig ka jaraya mashruuc oo manqas wata ayaa inta badan lagu soo sawiri jiray halka ay dhaceen tacdiyadii aad loo xasuusan yahay tacdiyadii la geystay oo ay ka mid yihiin weerarkii Hargeysa oo kale diyaaradaha lagu weeraray cidna saxaafadda xaq umaysan lahayn in ay ka waranto horta tacdiyada xilligaas ay soo bilowdeen 91 markii la soo gaaray waxaan u malaynayaa horta dadka xilligaa jiray dadkii shacabka u turi waayey shacabka iyaga waan matalaynaa ay lahayd dadka u turi waayey ma u malaynaysaa inay saxafi ama cid kale u turayaan su-aasha waa maya su-aasha ku saabsan saxafiyiinta maxaa loo dilaa waxay leedahay waxyaalo asaasi ah oo arrintaa ka jawaabaya waxaa ka mid ah tusaale aan usoo qaadan karaa kooxihii dagaalamayay ee soomaaliya ku dagaalamayay laftirkood qaar ka mid ah ayaa iyagu warbaahintii galay oo idaacado samaystay wariyaal la qortay marka waad garan kartaa halista ay arrintaasi leedahay tusaalaan ku siinaya ninka la yidhaahdo ganacsade Bashiir Raage wuxuu lahaa idaacad waxay ku tiilay xarunta booliska xarunta gaadiidka booliska ayay ku tiilay Afrikada bari baa loo oran jiray Bashiir Raage dad kale iska soo horjeedeen siyaasadda Muqdisho isku hayay wariyaha u shaqeynaya idaacadda Bashiir Raage miya kula tahay inuu ka badbaadayo cid kale Xuseen Caydiid oo kale inuu ka badbaadayo kama badbaadayo marka mid ka mid ah faktarada keenay in saxafiyiinta la dilo waxaa ka mid ah in dadka siyaasadda sidaa ugu lug leh inay yeeshaan warbaahin midda kale waxaa iyaduna qayb ka qaadatay warbaahinta Soomaaliya oo curdun ahay ma jirin iskuulaad iyo jaamacado tababar wanaagsan soo siiya saxaafadda marka sidaa darteed waxaa jiray qaladaad badan oo xagga saxaafadda ka dhaca waa qodobka labaad oo aniga aan u saarinayo taxadiyada saxaafadda qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay dad siyaasadda ku jira oo gabood fala sameynaya dad laynaya badaha ku shubaya qashin ku shubaya qandaraasyo saxiixaya dokumentariyo badan baa laga sameeyey wariyihii Talyaaniga ee la dilay hadda wali dacwadiisa ay socoto sababta lagu dilay waxay ahayd wuxuu soo duubay barnaamij documentary ah oo laga hadlayo heshiis mid ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida uu saxiixay qolo mafiosa oo dalka Talyaaniga ka jirta oo qashinka nuclear ku shubtay badaha Soomaaliya waa la dilay dad badan oo kalena siyaabahaas loo dilay marka dadka Soomaaliya waxay noqotay meel ay bay'ac mushtar ku sameeyaan dad dambiilayaal oo mafiosa marka saxaafadda ay sheegto marka qodobka ay ka hadasho oo kale waxaa dhacaysa in la dilo wariyaha ama la bartilmaamayso ayaa dhacaysa qodob isagana ka mid ah laakiin waxa ay sheegayo oo dhan justification uma aha ama maraamarsiyo uma aha in la dilo saxaafadda midda kale jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira oo calawsanaa carqalad badan ay ka jirtay ayaa iyaduna noqday qayb muhiim oo ka mid ah waxyaalaha saxafiyiinta loo bartilmaamaysto aniga sidaas aan u arkaa inta hadda la soo dhaafay muddooyinka la soo dhaafay saxafiyiin badan la dilay midda kale
kooxdii ugu dambeysay hadda soo dalka ka howlgasho waxay ahayd al-shabaab waxay ahayd kooxdii ugu darneyd waxaan aniga dhaho sameey ilaa ku dhawaad 10 idaacadood bay la wareegeen shabaabka boqolkiiba 80 saxafiyiinta dalka ka howlgalaya waa soo qaxeen waxaana ugu wacnaa ajandaha saxaafadeed ee warbaahineed ay wateen iyadoo ay xusid badan tahay waxyaalaha shabaabka soo saaray inay saxaafadda ka mid ah haddana lagu abaalnacay saxaafadii oo aanan xaqeeda la siin sababtoo ah shabaabka laftirkooda iyaga geysanayay dactiyo cabdinaasir adoo ku wata ka waran magac shaqo ku bedelasho barnaamijka loo bixiyay wariyaashu bixiyeen wuxuu ka mid yahay liistiga dheer ee taxadiyada saxaafadda laga geysto kow ma dhehaysid laba ma dhehaysid saddex ma dhehaysid afar ma dhehaysid sheekada waxaa soo bandhigay wargeyskii ayaha nolosha inuu ahaayaan malaynaya ayaa soo bandhigay maqaal wanaagsan buu ahaa oo si daily u soo bixi jiray wariyaasha lagu wareysan jiray waxaa jirtay dadka saxaafadda qofka markuu dugsi sare ka soo baxo mihnad buu jeclaanaya mihnadu uu jeclaadana waxaa laga yaabaa inay saxaafad tahay idaacad buu tagaya idaacadda u taga waxaa leeyahay okay inaad shaqayso miyaa rabtaa haa si tababar yaraan ku siinaynaa muddo sanad ah ama 6 bilood ah lacag la-aan ku shaqee okay ma maxay faa'iidada uu aan helayo magacaaga hawada laga maqlaya waxaad helaysaa isheg waxaad helaysaa waaye aragtinimo shaqo waxa la yiraahdo internship ayaa la siinayaa iyo practice ayaa la siinayaa marka kelmadda magac shaqo ku bedelasho halkaas ay ka timid waxayna ka mid tahay liistiga dheer ee taxadiyada saxaafadda lagu sameeyo ay ka mid tahay bulshada xitaa saxaafadda waxay ku samaysaa tacadiyo ay ka mid tahay in ay xaqraan isla markaasina iska indhatiraan doorka ay saxaafadda leedahay bulshada inteeda badan waa ka daahan tahay haddana iyadoo ay sidaa tahay bulshada saxaafadda tacadiyada ay ku qabto waxaa ka mid ah mar kasta waa aflagaadeeyaan saxafi baan ahay haddaad qofka ku dhahdo wuu ku aflagaadeynaya haddana subax kasta idaacadu daaraya wuxuu rabaa inuu warkii maqlo cabdullaahi balwaan keebaa daran in weriye la dilo iyo in lagu tunto xuquuqdiisa saxaafadeed ma haddaad uga mahadsan tahay sheekada dhimasho iyo xuquuq hadday noqoto dhimasha daran haddii uu qofku sii noolaanayo waa faa'iido xadgudubkana waa dhib intiisa la-eg mar haddii wariyuhu naftiisu ay sii soconayso laakiin lagu xadgudbayo waxaa kamid ah dastuur aan jeclahay inaan inta ka sheego saxaafadda la hordhigay mar waxay ahayd waxaana lagu yiri annagoo fara badan sargaal ka tirsan saraakiisha al-shabaab ayaa la dhaawacay xabaddu waxay uga dhacday xabadka shir jiraa'id buu qabtay waxaan weydiiyey su-aal ah suurtagal ma tahay maadaama nalagu sheegay in xabaddu ay ku gaadhay in aad saxaafadda usoo bandhigto haddii doonto xataa kamerada waa lagaa daminaya ma la gudbinaya balna tus meesha xabadda aynu ku maqalnay bashiir qariif gaani aa dhihi jiray ninka su-aashaasi aadka ugu dhiiraday aniga wax kamid ah dadkii baqay oo aan su-aashaas la imaanin bashiir waxaa loo qabtay 20 cisho gudahood in golaha uga baxo intaa keliya tacadugu ma ahayn waxaa kaloo la isku qabsanaya oo keliya xaafadda aad degan tahay ayaa waxaa dhacaysa in ciidamo ay ka soka maraan goobtii adigoona microphone wadan adigoona camera wadan haddii uu ku arko mid kamid a dadkii meeshii joogay hadduu ahaan lahaa sida saaxiibkay uu sheegay saxsaxo hogaamiye kooxeed iyo ciidamadiisa iyo group kale hadii aan la waxa lagu leeyahay saxaafigu camera ma baahna indhihiisa camera marka qatarteeda leedahay marka niyo waxaan dhihi karaa تعدق الوجرة لكن نفتح رونا ولا عندي نفتح بس كسي دينا يا ويكره نفتح أنت عبدنا استأذن محمد درسنا سعيد runtii qodobkan waxaan u malaynayaa inaan dhameeyey ma jirto maraan marsiyo inaba ha yaraatee loo heli karo in qof naftiisa la jaro adduunka oo dhan oo la rogo waxaa ka daran qof naftiisa la gooyo haddana marka la dilayo qof waxaa la yidhahdaa birmageydo saxafiyiintu waxay ka mid yihiin birmageydo sida ugaasyada hogaamiyaasha diinta hogaamiyaasha dhaqanka hogaamiyaasha siyaasadda haweenka caruurta dadka da'da ah birmageydaday ka mid yihiin lama dili karo qof aan dagaal kugula jirin lama dili karo mana jirto marmarsiya loo helayo arrintaa ciddii dishane liisti baa la hayaa hadda record baa jira dadka hadda saxafiyiinta dilay maalin maalmaha ka midna waa la xisaabin doona waxaan rajaynaynaa in xaakim cadaalad ah
وحل لو إيمان دونه لنا حسابين دونه ضدك دباتوين كبوشة كجري أو كلينا أنا هي صحافة ضدك كلا وحقالك يجون دلي وعلى حسابين دونه. ده لو على حساب طبعا نينك كواحد قد بحقوق ده إن وريها. runtii waxaa jira waxyaalo aan cajalka aan dib loo rogi karin oo gadaal aan loo celin karin ayaa jira waxyaalaha qaarkoodna waxay u baahanayaan cadeymo la taaban karo oo aan allegation iyo iska sheegasho aanan ahayn cadeymo la taaban karo marka dilka iyo dhaawaca iyo idaacad la xabay iyo waxaas waa waxyaalo la taaban karo taariikhna leh laakiin tacdiyada qaarkood sida qof mushaar loo diido oo kale waxaa imanaya qandaraaskii aan wada galnay waxay noqonayaan laba jiho oo iyaga is ogol ayay noqonayaan laakiin taa hadhow waxa kaliya lagu xallin karo waxa waaye inaysan mustaqbalka iman shuruucda iyo qawaaniinta loo dhigay saxaafadda iyo qaranka waa inay ahaayeen kuwa ilaalinaya xuquuqda asaasiga ee dadka saxaafadda ku jira halkaad weli barnaamijkani kala socotaani waa ifiamedia.com waxaana soo gudbintiisa gacan ka geystay hotelka Nuro International iyo shirkadda Salaama Cash and Carry barnaamijkeennana caawa waxay noogu martay sidaad u jeedaan Cabdullaahi Maxamed Cumar oo ku magac dheer Cabdullaahi Balwaan iyo sidoo kale Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir oo ku magac dheer Saxan Soxo annagoo weli ku guda jirna barnaamijkeena ugana hadalnay ugu horreyn xaaladda guud ee wariyaasha waa sidee xaaladda wariyaasha koonfur Afrika anagoo ku bilaabaya Cabdullaahi Balwaan وياي ما هذا هرتا صاحب صح ويسوق في كفر أفريقيا سجل حكت أنت دمبسي دمبستير دونا لكن أنت نريو كور قبي وحن سوق على كفر أفريقيا بلولي لبادي يكون يتوقع ورنتي أحيت وقتي صحفيين تنا درجون يكون لابسين وحنا أيوة حسميت مركي عن بيت كفر أفريقيا وحن كور قبي إن كفر أفريقيا ورياش الجوجا حين لقى أي بد قبا hawshoodu ay lixaad u socoto warbaahinana ay ka wada mas'uuliyeen ay ku midaysan yihiin ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Sojaasa marka la soo koobo magaciisa anigoo ururkii ka warqabo ayaan ugu horeyn waxaanu aragnay saaxiibkay Maxamed Muuse Moor darjaanigoo jooga xaafadda Bevel Cape Town South Africa kadib waxa la faahfaahiyay South Africa waraashooda sida ay ku sugan yihiin runtii waxaan aad ugu qancay markaan arkay maadada koowaad ورياشي أو إسبدل أي كل عقد سكفتنا سؤال شان الله يعني سومالي مركان جبنا ورياشي هيبة دودي يو إسلام تيجي كود أبي ولا قصنت ورياشي إسكعيلي ورنتي نقالة إسكهيستا برواقيسا ورباهين تودينا وطا وحن مرة بعد أدو كفر حي إن عد كلو بهالله يقوي هيمت وحن مرصد حد كفر حي إن ورياشي إليه نظام أوركا تابرية ولبنا كفر أفريقيا أي كود دكتور قرنكا aqoonsatana in ururkaas uu yahay saxafiyiinta Soomaaliyeed ka jooga koonfur Afrika waxaan kaloo aad ugu farxay oo ku qancay markaa inaan ka mid noqdo markii aan arkay sida ay wariyaashu isugu duwan yihiin gobolada kala duwan koonfur Afrika aan ka soo gudbo noloshii baan ku galay waxaan la kulmay dhowr ka tirsan saxafiyiintii aan Muqdisho iskala shaqeynay nin walba wuxuu haystay hawshiisii ilaa South Africa waa meel ganacsi loo yimid oo inta badan saxafiga uma imaan inuu howl saxaafadeed sii wato waxaan la kulmay markaa in wariye kaste uu ka bad qabo dhibkii hore تعدي وصل لكم من لبي دعوة كلا يسمى دولته كوهينين هوشي سي وطو إسقى برواقيسا نبت قليل أيساتو تليفون أنا لقوا أفلقادين لبتوني كيدل كان أيسان هيسان مركبتو حني كلا صحفيين تو وقت جالسين على كل ماي إلا هذا وقوة وقد دول لبكي كويسين جودها الصومالي. عبد الناصر أديكم. أنا كهال كان واحد جوجا مدة كله 8 سنة. يا جوجا. أنت أنجوجين هوش صحافة أيام. بشي جون لوادي كل سديدي أيام أساسني أورك الصحفيين الصوماليين الكونفور. وجدوين أورا وتريار بانا كلاهي. وأي كوب كتاهي إن بوشيدا صوت أفريقيا كنا لسي عد. قلب كلابات وها إسكو حركة صحفيين.
iyo qodobka saddexaad oo ahaa in saxaafadda Soomaaliya iyaduna la siiyo cod. marka aan sidaa leeyahay ma aha saxaafadda Soomaaliya inaysan cod haysanin, laakiin wariyaha Muqdisho jooga wuxuusan sheegi karin baan anigu sheegi karaa. sidaa darteed saaxiibkayga Muqdisho jooga oo aan telefonka ama Facebooka ama qaab kale iskula xariiro xogta uu isiiyo ee authentic oo ogahay inay dhab tahay iyo inaan sheegi karo. arrintii waan ku guuleysanay. dowladda xaggeeda waan iska soo diiwaan gelinay ilaa iyo intaa maanta waxaa laga joogaa 5 sano. dhawaanna bisha 22 Cape Town waxaan ku qaban doonaa xaflad ballaaran oo aan ugu dabaaldegayno 5 sano guuradii ka soo wareegtay asaaskii Sujaasa bisha Juun. waxaan aaminsanahay saxaafadda in ay qayb iyo tiir dhaxaad ka tahay dadaalada nabad u raadinta Soomaaliya iyo dowladda helida. innaga furiya xiriya waana runta biyo kama dhibcaanka ee jirta. Sujaasa inta la asaasay gadaal waxay yimid wariyaal badan waan soo dhaweeyay. shaqaa la raadinay wixii aan la qaban karnayna waa la qaban. hase yeeshee waxaa jira duruufo aanan weli laga gudbin. duruufaha waxaa ka mid ah qofka waa saxaafadda Soomaaliya ku shaqeyn jiray. Soomaaliya waa dal looga hadlo luqadda afka Soomaaliga inteeda badan. qofkii xirfad kale luqad kale leh wuxuu ku hadlaa Carabi. dalkan 99% saxaafaddu waxay ku hadashaa afka Englishka ay ku baxdo. sidaa darteed saxafiyiinta halkan yimid caqabad bay ku noqotay. midda kale tababarka saxafiyiinta South Africa ay haystaan ma aha mid ay haystaan ama laga fili karo inay haystaan kuwa Soomaaliya. sababtoo ah South Africa waa dalka dhaqaalaha ugu weyn Afrika, waa dal degan oo colaad aysan ka jirin, waa dal wax kasta u saxan yihiin. halka Soomaaliya ay wax kasta ka qaldan yihiin. ma aha arrin iyada la barbar dhigi karo. midda kale nidaam gacan bidxayna oo aad u adag oo weliba saxaafadda South Africa ka jira oo ah ma haysataa Tesla 13 number ay ku qoran yihiin. ID ma haysataa 13 number ay ku qoran yihiin. shuruudda koowaad markaad wargeys u tagtid horta haddii aad ka shaqo bilaawdid dad yaroo ka shaqeeya waa jira. Naciime Axmed ah ka mid ah waxay ka shaqeysaa ijraa'idka dalka ugu weyn ee la yiraahdo Daily Sun. min guuleed la yiraahdaa jiro oo ka shaqeeya idaacadda qaranka SABC ka shaqeeya jiro. laakiin markaad wargeys u tagtid shuruudda koowaad ku weydiinaya waxa waaye driving license ma haysataa. driving license haddaad haysanin koow waay. qodobka labaad Tesla 13 number leh ma haysataa maya. qodobka saddexaad waxa waaye shahaado Koonfur Afrikaana ma haysataa. Koonfur Afrika ay aqoonsan tahay. qodobka afraad waxa waaye experience-gaaga ilaa inta soo shaqeysay. shaqada marka hore la xayeysiinayo asaas u shaqeynaa 5 sano qof experience leh oo saxaafadda oo wargeys ka soo shaqeeya oo ay tahay in cadaymo waliba geyso. waa shuruudo aad u badan. marka iyaduna waxay noqotay arrin dibkeeda ayay noqotay. marka waxay noqotay inaan in badan saxafiyiinta noo imaado ku dhiirigelino in ay luqadda iska dhisaan, in ay macaahidda lagu barto fanka saxaafadda lagu barto, warbaahinta lagu barto tagaan wax soo bartaan. in badan oo ka mid ah arrintan wax ku guuleysano oo waa dhacday. dad badan oo hadda arrinta aad ugu lug leh oo hadda meel fiican ka gaaray waa jiraan. qofkii markuusan shaqeynayn uusan warbaahin rasmi u shaqeynayn wuxuu ku qasban yahay inuu dukaan tuulo ku yaala ka shaqeeyo ama dukaan magaalo ku yaala ka shaqeeyo. waqtigiisana uu yar yahay. marka xilliyada weekendiga ah iyo habeenkii ayuu waqti helaa. markaasina wuxuu ka waramaa xaaladda jirta. marka Sujaasa waxyaalaha soo kordhisa waxaa ka mid ah dhibaatada Soomaalida halkan lagu geysto. waxaan ogeysiinay adduunka caan baan ka dhignay. waxay noqotay marka cid kasta oo Soomaali u hadasho dareen ku jirta meel kasta uu joogo shir kasta oo ka qayb galo in qofkii South African ah
أما دولة ساوث أفريقيا صعد وكيرا هي تذكرنا دشان هل يشجع هذا الشرر عالمي أو UN كلا قبتي تذكر قيب قلا أو صوماليا إن أي تذكر ساوث أفريقيا كويدين هاي ساوث أفريقيا ما ختم هذا تذكرنا الله يسامح marka taa waxay saameyn ku yeelanaysaa dadkii saraakiisha ahaa ama dawladda ku jiray South Africa ee siyaasadda gudaha ee ammaanka Soomaalida in la sugo wax ka qabato mid kale Soomaalida waxaan siinaa cod dadka Soomaalida waxay South Africa joogo waxay noqdeen dad codkooda maalin kasta waa maqlo bulshada Soomaaliyeed qayb lixaad ka mid South Africa waxay ka mid tahay meesha lacagaha ugu badan laga diro oo Soomaaliya loo diro oo qoysas badan laga saacideeyo xitaa Mareykanka laga diro lacagaha halka laga diro marka waxaad garan kartaa saameynta ay dadka South Africa ku nool Soomaalida ay leeyihiin qodobka kale wacyigelin baan u sameynay ee Soomaalida South Africa ku nool tusaale ahaan dad badan baa hadda doorbidaya inay locationada ka soo baxaan tuulooyinka soo baxaan oo magaalooyinka fursadaha yaala maalgashi ku sameeyaan ayay aad u doorbidayaan arrintaasna waa arrin saxafiyiinta ay ka shaqeeyeen sababtoo ah maalin kasta hadii la sheegay dilkii iyo dhibaatooyinka meesha ka dhacay mid kale dadka tuulooyinka ku jira laftarkooda aragtidooda iyo sida ay wax u arkaan wax ka bedelay sida ay ula macaamilaan sababtoo ah dhibaatooyinka qaar ka mid ah waxaa sabab u ah macaamilka ay la leeyihiin bulshada ee martigelisay ee la nool yihiin ayaa u ah sabab marka taa laftarkooda dabeecadahooda wax bay ka bedeshay ومحسنتها عبد الناصر بلوان حتى نقول صلابته حالة ورياش صوت أفريقيا كهذا ورياش صوت أفريقيا محي قبطان شقة أي قبطان استحافة حتى أو قبطان محيتها ومحسنتها محط أنت بدل شقوين ك ورياش أي قبطان قاركود بالجد واجه وحكم إذا هدبتوين كدلك كجرا إن أي باهيان وحكروا حسد مضم حبك ترسل دولة كفر أفريقيا وعبد الناصر وسي دريو أيوة حي قارين مجال مقدشو سؤال شو هو الرسول ويدي واحد أحيد محايد وكوكا اللي فيه أنت دل كجذبتان إن الحقوق دي آدم إذا أدكو حد جذبتان وضد كنول قيس دم أدبكو قبتان وحيد أرنتي هو الرسول صحفي كترسن سجاسة وكجذب بيكفر أفريقيا قيس جوب دكانة قيمنا كأحجيف هو ذا النورا أيام مارن قرن دبل وقبتي وحكوا الباهية إن كونترنير لقوا قاضي الشعب الصوماليات وحيابا أقول يابك بدنا يهيد مركب ورياشة وحيابا يقبتان هدي أصول لابتو وحكم ذا كو ورياشة الصوت أفريقيا مركب أي مدين وحأكر أي أقوال سيدا صاحبك يهرب الشيء أصول كرتي واجه هري لغات كلية أي أم بالوش قنجري ورياشة كفر أفريقيا هذا وحي كتير لابسدين إن وريو بقول كي بس عايش نسجل نتيجوين كيسي كجارو وهذا كيسي صحفي مدرب كجري صحافة وقت كان جامعة يو هوله اللغة كذب عربية وحي كانوا ورياشة هول جريان ويب سايديو إمي كان نقضي هرمود كصحفيين تصوماليات ولما وسيدي راسي waxay soo kordhiyeen macluumaadiyada si degdeg ah looga soo waxa arkaysa magaalada Muqdisho qof jooga ayaa 3 maalin ka hor wuxuu igu soo wacay telefoon isagoo leh ninka lagu dilay feerada ee ka dhacay Johannesburg duleedkeeda ma la socota waxaan ku yiri halka ka akhrisato wuxuu ii sheegay website ku yaala Koonfur Afrika inuu kaalintaas ka qaatay marka waxaan dhigi karaa hawshoodina way wataan ganacsigooduna hore looga hadlay waxa la yiri mutaqana 3 mitir masaajid u ah jiif u ah goobtii raashin ka waa وأهل الله يبرم حد بدر. حي عبد الناصر. هرتا بس وحاجة مهمة. صحافة دونك وحلالة أجندة. أجندها إنه حكم الوحدة يعني والدنيا national. تا وحن نقول نهاية تصارع هرمود. إنه أو أيضاً عندنا وحبا نقصين صحافة شقيسنا إنه إسكابر نافكر أيها هذا وقت غير إنه صوحري أيها وحكو قبلنا كنتي واجران دليلو مجستعد صوماليدا إلهي أسو سمينيو عرق أغسو كده أو ملائكة أو سيدو حلور ربو قبلنا إنه أساسياً markaan soo yareeyay xuquuqihii aan Soomaalinimada ku helno oo dhan weyn waxa kamid ah waxbarashadii asaasiga ah anigu waxaan kamid ah dad tiro yar oo boqolkiiba 10 ah oo caruurta Soomaaliyeed 20 sano la soo dhaafay waxbarashada laakiin marka boqolkiiba 90 uusan mujtamacaagu jiilka hadda jiro uusan waxba baran waxaad garan kartaa
farqiga iyo dhibaatada meesha ka jirta ayaa garan kartaa. ma jiraan wax khilaaf ah u dhexeeya wariyaasha ku nool Koonfur Afrika sidaan ognahay wadamada Kenya Soomaaliya oo aan ka nimin wariyaashu waxay u kala qaybsan yihiin group u kala qaybsan yihiin ama ay isku haystaan shuruud ama ay isku haystaan shaqo ay isku haystaan ma jiraan South Africa gudaheeda ama khilaaf wax ah oo ka jira wariyaasha xageeda aan ku hormaro balwaan horta marka koowaad waxaan ka cudur daaranayaa anigoo ku hadlay magaca saxafiyiinta Soomaaliyeed oo dhan bal raalli ka ahaada annagu inaan iskhilaafno ma ahayn laakiin dantii baa keentay oo Soomaalidu qayb bay lagu qabatiyeen cudurkoodii aan u soo laabtay arrinta South Africa runtii marka la yiraahdo wariye ma aha shar la iska qaado ma aha magac la iska sheegan karo ma aha runtii darajo qof walba uu isaga dhawaaqi karo xaqiiqatan marka ka hadlo wariyaasha Soomaaliyeed ee ku sugan Koonfur Afrika wax khilaafa kama dhaxeeyo waxaan taas u leeyahay marka waxay tahay xaqiiqatan marka la yiraahdo khilaaf waxa la doonayaa in laga mideeyo labada qofood ee iskhilaafsan la tilmaami karayo marka hore saxafiyiinta kaalinta ay uga jiraan hadduu qofku uu saxafi yahay wala soo bandhigi karaa marka waxaan dhihi karaa aniga ugu yaraan saxafiyiinta Soomaaliyeed ku dhaqan Koonfur Afrika ma jiro wax khilaaf ah oo u dhaxeeyo way uga duwan yihiin dalalka intiisa kale ma hado barnaamijka sidoo kale waxaan marti ku ah ama kamid ah dadka martida ah wariyaasheena ah South Africa ku nool Xasan Yuusuf Maxamed shafadiyeere oo ah wariye Soomaaliyeed ku nool dalkan Koonfur Afrika rabana inuu su'aal weydiiyo wariyaasha maanta barnaamijka martida u ah Xasan soo dhawow maxay tahay su'aasha still aad baad ma santahay waxaan wataa laba su'aalood oo ah mid waa suxufiyiinta Soomaaliya midna waa suxufiyiinta Koonfur Afrika iyo Sojaasa aan ku hormaratan kuwaad suxufiyiinta Soomaaliya waxaa ka jira warbaahinno dhowr ah maalinba waxaa soo baxa warbaahin dhowr ah suxufiyiinta aad bay soo kobcayaan soo lama oran karo suxufiyiinta Soomaaliya khibrad buuxda oo malaha hawsha suxufinimo mid waa tan labaad ee South Africa ururkan Sojaasa waa urur soo jeena aniga markaan dalkayga ugu soo dhaweeyay si toosan oo mahadcelinaya hadda ururka Sojaasa xiriir dheer ah la sameeyay dawladda Koonfur Afrika si ay suxufiyiinta oo helaan aqoonsi buuxda labada su'aaladan weydiin la saxibay aan ku hormaro su'aasha warbaahintiis ka soo dabeymaanaysa ee Soomaaliyeed Abdullahi Balwaan su'aasha waa sax aad u maasan tahay saaxiibkay runtii waxa la karaa wariyaasha iska soo dababaxaya iyo marxaladda dalka taagan runtii waqtigan ma banaanaba in la cabiro khibradooda waayo boqolkiiba 90 ku dhawaad 95 dalkii way ka soo carareen warbaahintiina way shidan tahay bulshadiina qayb ka hartay marka laga reebo intii qaxday iyo intii dhimatay marka waxaan dhihi karaa dadka imika soo baxay marba tacliin la sii doona laakiin hawsha imika ay hayaan ayaa ka weyn khibradooda la raadinayo waqtiga marka marba la tababari doonay hawsha sii wada kulli waa arrin hadda jidi karta ila ma muuqato adoo raacsanaya arrinta Sojaasa runtii Sojaasa waxaan moodaa in barnaamijka bilowgiisa aan ku soo bandhignay saaxiibkay Xasan uu dhageysanayay waxaan jeclahay arrintan Sojaasa runtii aad u qoto dheer bal mahadu adigu aad u mahadsan in bilow ilaa iyo dhamaad waxa ay nala fadhiya caawa oo mahad ilaahay tahay Sojaasa aasayaasheedii iyo waliba dadkii runtii wax badan la soo garan taagna inta xusuusanahay markaan ka soo qabto isaga si dhameystiro doona wallahi idmo waxa weeyaan Sojaasa marka koowaad dawladda Koonfur Afrika waxay hor dhigtay barnaamij ah in ay tahay saxafiyiin dhowr jeer baa lagu celiyay waxaan kamid ahaa guuto aniga iyo nin la yiraahdo Maxamed Muuse Nuur iyo Ahad ayaan maalin waxaan u tagnay wasaaradda diiwaangelinta organizationka qaxootiga ku ah ama ururka marka qaxootiga ku ah dalka waxaan lagu yiri wariyaal miyaatihiin ha runtii waxaan ogaanay in aan wariyaal nahay markaan ku sii fariisano South Africa ay naga warqabto
waxaana la hordhigay jaraa'id xogmaan la yidhaahdo cadadadiisa qaybihiisa kala duwan ayaa hortana laga dhigay waxaana la yidhi ilaa bilow ilaa dhammaad cadadkii bilow ilaa dhammaad waa kana hawshiinana saasaan ula soconaa hayo goormaan heli karnaa markii waxqabadkeennii iyo nala dhegaystana waxaa naloo ogolaaday in dowladdu ay aqoonsina siiso weliba naloo ogolaaday inaan noqono wariyaal South Africa ay aqoonsan tahay qaxootiga ku dalkaas dalkani welibana xuquuqdooduna ay banaanta waqtiga wixii ka dambeeyana ay heer weliba la istaagi karaan weliba waxa kale oo xusud mudan in dowladdu ay nasiisay fursad iyo warqad aynu cabashadeena ku gudbin karno wax badan way noo hasay okay aan dhanka kala siiyo isla su'aalahaas uu weydiiyay in wariye shafadiyare Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir Cabdinaasir ka warqad su'aasha koowaad warbaahinta ka soo tababaraysa ama iska soo tababaranaysa iyo wariyaasha Soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeeya soo badanaya iyo arrinta sujaasada oo israacsanaya waxa la yiri alla helaa nabi marka warbaahin la helo uma wariye tababaran oo rasmi la helaya marka warbaahinta ay tayoodo ayaa iyadoo la helaya wariye tayo leh warbaahinta ay tayoodo marka warbaahin lacag leh marka la helo oo maalgashi lagu sameeyo ayaa la helayaa wariyaal tababaran oo leh khibrad loo baahnaa wariyaasha intooda badan ma laha khibrad ma laha waxbarasho asaasi ah oo saxaafadeed intooda badan waa kuwa shaqada dhexdeeda ku tababartay maadaama aysan jirin jaamacado iyo kuleejooyin saxaafadda lagu barto oo dalka ka furan oo sanad kasta la leeyahay 200 saxafi baa soo qalin jabisay la leeyahay aysan jirin adigu ma dad baa cirka soo dhacay inta aad haysato soo inaad tababartama soo inaad dhoobatama horta taas uga baxaya laakiin hadda maadaama isbeddello ay ka jiraan Soomaaliya arrintan waa arrin aad loogu soo baraarugay waxaana filayaa inay jiri doonaan in warbaahinta lagu qasbi doono in wariyaasha u shaqeeya ay tababaro dheeraad u dirto wariyaasha cusub ee la qaadanaya lagu xiro shuruud ah shahaado ma haysataa okay shahaado waan haystaa kadibna la weydiiyo kadibna uu imtixaan galo iyadoo dad macnaha aqoon saxaafadda ka dhisan oo yahay saxaafadeed ay tababarkaasi qaadaya arrinta sujaasa South Africa waa dal weyn oo Afrikaan ah oo xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga xag kasta ka dhisan laakiin waa dal curdun markaan leeyahay dhowr iyo 10 sano way South Africa xorriyad haysataa qawaaniinta u degan intooda badan waa kuwa laga dhaxlay nidaamkii midabta koorka weli waa dal transformation ku jira isbedel ku jira midda kale waa dal dadka intooda badan boqolkiiba 40 ay fuqara yihiin shaqada aysan haysan dawladda marka waxay ku foogan tahay oo attention-kooda ay ugu jira dadkii ayada ku hoosmaa marka firaaqa badan uma hayso dad dalka la ka soo qaxay oo dalka yimid firaaqa badan ma sidaa darteed ayaysan u jirin hal mashruuc oo dawladda Koonfur Afrika ay leedahay oo dadka qaxootiga loogu talagalay in upliftment lagu sameeyo ma jiro hal mashruuc ma jiro halka markaad Yurub tagtid dadka guryaha ay degan yihiin waxbarashadooda caafimaadkooda waxaasoo dhan ay jiraan mashaariic dadka wax loogu qabanayo marnaba ma aysan dhigin cag inta badan waxaan la xiriirnay hay'adaha u dooda xuquuqda waxaan la xiriirnay macadka xuquuqul qowlka Freedom of Expression Institute ayaan la xiriirnay waxaan la xiriirnay maxad lagu barto saxaafadda la xiriirnay waxaan la xiriirnay ururka saxafiyiinta Soomaaliya ururka saxafiyiinta Koonfur Afrika oo xitaa qaarkeed xubno ka nahay ururka wariyaasha madaxa bannaan freelance journalists ayaan la xiriirnay intaasoo dhan weli howlaa socda waxyaala la qabtay waa jiraan laakiin geela gara kororka keen ma aha
waxaana weli ku guda jirnaa barnaamijkeenii bandhiga mahadistiila oo caawa ay nagala qayb qaadanayaan Cabdullaahi Maxamed Cumar, Cabdullaahi Balwaan iyo sidoo kale Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir saxan saxo. barnaamijkan soo gudbintiisa waxaa gacan ka geystay hotelka Nuro International ee magaalada Johannesburg Koonfur Africa. sidoo kalena waxaa gacan ka geystay shirkadda Salama Cash and Carry. barnaamijka sidoo kale waxaan marti ku ah ama kamid ah dadka martida ah ee wariyaasheena ah South African ku nool Cabdiraxmaan Nuur Jilay. Cabdiraxmaan Nuur Jilay isaguna su'aal uu qaba bal aan doorno su'aasheeda ayaa waxay tahay haatan aan rabo inaan weydiiyo saaxiibadayda habkee ayaa loo horumarin karaa codka Soomaalida ku nool South Africa. Okay, aad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Nuur Jilay. qaabkee loo baahan yahay inay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo Cabdullaahi Balwaan kadibna aan u gudubno su'aalaha kale uu qabo walaalkan Cabdullaahi waxay kula tahay runtii aad u mahadsan tahay saaxiibka Jilay wuxuu yiri sidee loo heli karaa cod midaysan dadka Soomaalida ku fur Afrika iyo Shaam. runtii waa waajib aad u ballaaran annaguna runtii waynu bilownay waxaanu bilownay bilowgeedii hore waxaanu sameynay wargeys codkooda lagu soo koobo alxamdulillah wargeyskaasi meel dheer buu gaaray maantana waxaanu sameynay una sheegaynaa shacabka codka kaliya ee South Africa inuu jiro page loogu talagalay kaasoo ka duwan warbixinada ay ka akhristaan ama ay ka daawadaan telefishinada. waxaa la yiraahdaa pagekaasi xogmaal.net waa wargeyskii oo internet isku bedelay. xogmaal.net wuxuu baahinayaa cod midaysan weeyaan oo runtii dadka South Africaanka ah iyo dadka Soomaaliyeed heshiisada dhexmara uu soo bandhigaa. waxaa alla mahadi ah oo dadka ka farxisay maalintii pagekaasi lagu arkay warbaahinada kalena aysan qorin arkin oo aynan helin ayaa waxay ahayd in dhaqaatiir South African ah iyo dhaqaatiir ajnabiya ay gabar Soomaaliyeed oo Koonfur Afrika ay joogto ay siiyeen shahaadada dhinaca caafimaadka taasoo darajadii ugu horeysan noqotay. waliba wuxuu wargeyskaasi amraade pagekaasi website-ka baahiya horumarada ay gaaraan dadka Soomaaliyeed ku dhaqan Koonfur Afrika. runtii ma fiiriyo sida warbaahinada kale maxaa yeelay marka aad Koonfur Afrika soo hadasho waxa lagu yiraahdaa wariyaha dhibaad wada ma dhimashad wada wax kale laga yaqaan South Africa. marka alxamdulillah codkii midaysan waynu bilownay waxaanu sameynay wargeys mid lamid oo website ah dadkuna halka bay kala xiriiri doonaan waynu ku sii dadaali doonaa in codka Koonfur Afrika ay sii midayno shacabka Soomaaliyeed. Cabdinaasir aan ku sii arintii inuu weydiiyay Cabdiraxmaan Nuur Jilay maxaa loo baahan yahay doorka waxqabadka ay qaban karaan runtii saxafiyiinta uu weydiiyay Cabdiraxmaan waa inta hadda la qabanayo oo tamarta inteeda lagu sii daro inta dadaalka oo la sii kordhiyo ayuu baahan tahay. sidoo kale waxaa meesha ka mid ah wariyaasha martida inoogu ah Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Abukey oo isaguna ka mid ah wariyaasha ka howlgalaya Koonfur Afrika. Abukey maxay tahay su'aasha ومحسن تاعي سعيد مع ستيلا سؤال ويدنا عبد الناصر تاعي ما سمعتني حرير جوتا إلا حتى المودين سؤال ويدنا هذا ويديتي سومالي مجران صحفيين كوهلا كوح أو واحد دونان شجع أما حيسيان أور مثل دولة هذا جيران جوابتنا هاي تاعي sidee loo bedeli karaa dhexdhexaadnimadii ma jiraan suxufiyiin jibiyay su'aasheedu waa intaas baad mahadsantahay Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Abukey waana kaaga mahad celinayna ka qayb qaadashadaada barnaamijka ay nagala qayb qaadanaysid arrinta Abukey Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Abukey uu weydiiyay runtii horta hadalkiisa aad ugu farxnay wariye gadaalka yimid oo ahaa gadaal looga yimid haddana firfircoonadiisa iyo hamigiisu ay nadeeqeen ayuu ahaa
iyo sida uu saxaafadda ugu heelan yahay iyo sida uu rabo inuu wax u qabto dadka niyada ayaa laga jaajgaraya ama laga xukumaa su-aasha uuna weydiiye waxaa waaye celcelis ma samaysa dad waxaa laga yaaba inay dawladdu u tagteen laakiin ma ku celceliseen runtii taa maya ma loo baahan yahay ha waa loo baahan yahay ma jiraan wax hadda soo muuqdo soo dhow ha waxaan sheegi lahaa hadda in uu jiro mashruuc dhowaan la hirgelin doono oo weliba stagekii hore wejigii hore ku jira oo aan kala shaqaynayno sujaas ahaan hay-ada caalami ah hay-ad fadhigeedu yahay New York dalka Mareykanka iyo hay-ad fadhigeedu u yahay magaalada Johannesburg fadhigeedu yahay ka oo xarumo magaalada Nairobi looga sameynayo saxafiyiinta soo barakacay in wax loogu qabto xarumaha sidoo kale waxaa laga sameyn doonaa Johannesburg iyo Cape Town oo sidoo kale Afrika wariyaasha soo barakacay nidaamyada meesha ka jira ay u diideen in ay wax qabtaan iyaduna arrintaan way dhici doontaa waa mahadsantahay cabdinaasir arrinta abukayna weydiiyey balwan maxaa ku darsanaysaa gabagabadii mare waagaag aad umahadsantahay saaxiibkay horta abuka aad baad umahadsantahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida cabdinaasir ba uu sheegay inuu yahay wariye dhawaan soo gaaray Sojaasa Koonfur Afrika kusoo biiray kana mida wariyaasha imika hawshooda u helan niyadu waa qaali waa muraayad la iska daawan karo runtii su-aashan waa la sameeyey oo waxaa jira ilaa haatan Sojaasa in ay daqiiqad walba ay hesho riboodyada loogu yeero wariyaasha Koonfur Afrika waxaa jira markii shir jira ay uu qabanayo mas'uul kaste oo ka tirsan Koonfur Afrika Sojaasa waxa soo gaartay warqadda casuumaadda ilaa welina casuumaaddu way taagan tahay oo farkama qonda ku celceliskana uu imaan doonaa oo hadda ilaahay haatan ku celceliska hadday la sameeyo mar haddii aan hawsha qaybteedii kuwaad bilownay ku celceliskana uu imaan doonaa waanu ku rajo weynahay insha Allah marka waxaan dhihi lahaa taa gabagabadeedii ku habboon tahay markii ay soo gabagabado aad u mahadsantihiin barnaamijkan caawa waa barnaamijka bandhiga mahadistiila oo ay ka wada qayb qaadanayaan wariye Cabdullaahi Maxamed Cumar Cabdullaahi Balwan iyo sidoo kale wariye Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir oo ku magac dheer Cabdinaasir Saxan Soxo barnaamijkuna waxaa gacan ka geystay soo gudbintiisa hotelka Nura International waxaa sidoo kale gacan naga siiyey soo gudbinta barnaamijkani shirkadda Salaama Kashan Keri wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni aan uga hadlaynay xaaladda wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Afrika waxaana ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka anigoo weydiin doona asxaabta barnaamijkayga la qayb qaadanaysa waan ka hadalnay dhibaatooyin shaqo nolol maxay tahay doorka saxaafadda Soomaaliyeed ama ha joogto dalka ama ha joogto dibadda aan ku hormar Cabdinaasir aad u mahadsantahay waa su'aal muhiim ah qofka wariyaha ah ee marka hore shaqada markuu soo galay waa su'aasha ugu horeysa oo ay tahay inuu isweydiiyo waa maxay si la mid ah sida ninka askarta ku biiray oo militariga dalka ku biiray waa inuu ogaadaa doorkiisa waa maxay difaaca dalka uma soo galayo meesha askari baa noqdaa inaan darajo qaataan rabaa inaan qori qaataan rabaa uma soo galayo ujeedkiisu kaama doorkiisuna kaama doorka koowaad waxa waaye dalka in la difaaco waxaa la yiri hadalku waa maqliga xawda ka jariyo wuxuu ahaa gabay meels gabayada mid ka mid ku jira saxaafadda waa mindi laba af leh ama waa qori labada dhinac ka shidan way marna dhibaato keeni karta marna wanaag keeni karta laakiin doorkeedu waa inay wanaag keento ma aha inay dhibaato keento tusaale ku siinay maalintii ugu horeysay Muqdisho laga asaasay saxaafad madax bannaan oo waliba saxaafadu ay ka jirtay 91 iyo wargeysiga ka soo bixi jiray laakiin ma ahayn wargeysada wax dadka ku filan idaacadaha ayaa markii maadaama dadka oral community ay ahaayeen idaacadaha ayaa markiiba qabsaday dadkii oo xamar waxa ka jiray qad cagaaran
idaacadihii markay imaadaan qadkii cagaarnaa wuu tirtirmay muqdisho waxay ahayd magaalo kale xiran way isu furantay ganacsi ahaan iyo nidaam ahaanba way isu furantay idaacadihii waxay dhaliyeen kacdoon waxbarasho iyadoo isgoyska number 4 ma xilliga rush hourka xaalada aysan jirin arday meel laga raaco basaska waxay ahayd kacdoon ay keeneen warbaahinta 2006 yaa la soo gaaray bulsho doorkii ay saxaafadda ciyaarta waxay keentay inay bulshada samaysa kacdoon hogaamiye kooxeedyadana dalka laga cayriyo ayay keentay waxay ka mid tahay doorka saxaafadda ay ka mid tahay saxaafadda dalka difaaciisa ayay tahay in loo isticmaalo saxaafadda waxay tahay in loo isticmaalo baraarujinta bulshada wacyigelinta bulshada ka reebista xumaanta farista wanaagga ayay tahay iyo farku fiiqista dadka bulshada wax u dhibay saxaafadda doorka ayay leedahay in badan oo ka mid ah hadda waa ay qaatay saxaafadda waa ay qaatay hadda laftarkeed biseelka siyaasadeed ee dalka ka jira dawladda lagu dhisay waa wax ay saxaafadda keentay marka la sheego siyaasiga wax qaldan marka la sheego dadka halaagaya marka la sheego oo farta lagu fiiqo bulshada waxay yeelanaysaa wacyigeeda kordhay waxaa la samaynayaa in dooq ay bulshada yeelato war helaa tala hela intay ka timid war helaa tala hela dadka marka war la siiyo xog la siiyo ayay talo wanaagsan iyo go-aan wanaagsan qaadanayaan tusaalaan ku siinaya saxaafadda ajando waayo saxaafadeennana waa inay ajandaheeda koowaad noqotaa wadaniyad haddii dalka maraykanka waxaa dhacday in tartan adduunka orodada la galo ayay dhacday 2 nin baa marka kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kala galo ninka kaalinta koowaad galay wuxuu ahaa nin midowga soofiyada ka socday kaalinta labaadna waxaa galay nin ka socday maraykanka saxaafadda maraykanka waxay tiri ninka labaad ee adduunka ugu orodka badan oo noqday nin Amerikaan iyadoo la soo hadal qaadin ninkii ruushka ahaa iyadoo la soo hadal qaadin ee soofiyad ka socday adigu marka saxaafadda Soomaaliyeed waa inay wadaniyad ceenkaasi ah kugu jirto waa inaadan bahdilin dadka bulshada wax ku ah waa inaadan been ka faafin Soomaaliyeed waa inaadan been ka faafin waa inaad sharafta dalkaaga difaacda waa inaadan ogolaanin waxyaalo wax u dhimaya sumcadda iyo jiritaanka Soomaaliya inaad wax u dhimo aad u mahadsan tahay Cabdinaasir waana rajaynaynaa in aad u fahanay doorka saxaafadda Cabdullaahi Maxamed Balwaan adiguna maxay tahay doorka warbaahinta Soomaaliyeed ama wariyaasha Soomaaliyeed loo leeyahay aad u mahadsan tahay intii si badan hadalka shacabku waa la dhadhansiiyey kaalinta wadaniyadana waa kaalinta lama iloobaanka ah waxaan laakiin aniga ku darayaa qof waliba oo bulshada xumaata ku dhex jira saxafigu waa kan soo wari lahaa arrintan ugu weyn ee aan ula jeedaa waxay tahay in badan oo kamid ah dadku ay isweydiinayaan haddii maanta wariyuhu uu ka sheekeeyo qof dhib bulshada ku dhex wada taariikhdiisa soo bandhigo waxaa suurtagal ah in maanta qofkii u haystay mas'uul bari uu ogaanayo waxaan tusaale u soo qaadanaya haweeney caan ka ah magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ahayd haweeney ka ganacsata gubidda muufada maalin maalmaha kamid ah ayay waxay aad u dhageysan jirtay warbaahinada maalin baa waxa qodbay mas'uul Soomaaliyeed iyadoo mas'uulkii dhageysanaysa ayay ka aragtay eray uu taariikhda wariyuhu mar uu ka soo qaatay isagoo ku hadlaya markaaba waxay tiri suxufigu waxaan u malayn jiray xumaan faafiyo inuu yahay wuxuu boobtii iga qarsan ii tusay si fudud marka waxaan dhihi karaa taasna way ka qayb qaataan wadaniyadana way soo bandhigaan bulshadana qofkii ka qarsoon ayay banaanka ugu soo saaraan waxaan dhihi karaa marka waa kaalin lama iloobaan kaalinta bulshada Soomaaliyeed ay u hayaan warbaahinada Soomaaliyeed Cabdinaasir iyo Balwaan dhibka ka jira dalka ma la dhihi karaa saxaafaddu waxay ka tahay adoo ka hormaray Cabdinaasir maya lama dhihi karo sabab saxaafadda inteeda badan hadda jirta waxay soo xana qaaday 2000 wixii ka dambeeyay waxayna soo karaar qaadatay 2005 inta ka hor dalka burbur buu ku jira dhibaatooyinka ugu badan ee dhacayna waxay dhaceenba inta ka hor xilligaas magaalada Muqdisho 4 bilood bay ku burburtay saxaafadda burburinaysa saxaafadda meesha joogta
faras magaalihii magaalada wuxuu ku burbureen days maalmo yar gudahooda ku burburay laakiin ma la dhihi kara gruubyada soo badanaya ama maalin walba nin cusub soo la soo shaac bixinaya in saxaafadu qayb ka qaadatay horta waa jiraan wax aan la inkiri karin baa jira wax aan la inkiri karin baa jira oo ah in faafreebid la'aanta saxaafadda oon faafreeb leh in ay dhici karto in dhibaatooyin laakiin niyadda aan ka ahayn oo si dadban ay u imaan karaan midda kale dad baa saxaafaddii u isticmaalaya in ay bannaanka isku soo dhigaan saxaafadda ma hubaysna doog ma laha lacag ma haysato wax allama dad intaaba haysta oo hubaysan baa saxafiga ku qasbaya inuu warkiisa faafiyo ku qasbaya isku dayaya inuu saxaafadda gato marka waa dhibaato saxaafadda laftirkeed aysan waxba ka qaban karin haddii xitaa iyada ay ku leedahay aysan doog u lahayn inay joojiso barnaamijkaas ninka idaacad inta soo gatay lacag ka bixiyay wariyaal aanan bishaar haysan u yeeray oo dhahay kaalaya ka shaqeeya maalinka dambe warkiisa faafinaya uma malaynayo inay saxaafadda doog badan ay leedahay uma malaynayo midda kale qodobka laftirkii wuxuu ku imanayaa khibrad la'aanta iyo aqoon badan oo aysan lahayn saxaafadda laftirkeed dadka saxaafadda ka shaqeeya oo lahayn iyaduna waa another factor waa qodob kale oo saameyn arrintaa ku leh waa mahadsantahay cabdi naasir aan siiyo cabdullaahi balwaan ma la dhihi karaa dagaalada iyo nimanka soo shaac baxaaya ee mar walba maalinta ka dambeysa ama shabaab ha soo shaac baxaan ama ha soo shaac baxaan xisbul islaam ama kooxo kale ha soo shaac baxaan saxaafaddu door bay ku leedahay ma la dhihi karaa anigu waxaan aaminsanahay haa wixii ka dambeeyey dhibaatooyinkii 2005 saxaafaddu kaalin bay ka qaadatay waxaana looga faa'iidaystay aqoon darro ma aha waa dhaqaale saxafiga iyo dalku wax dhaqaalaa ma laha sidaa darteed saxafiga waxaa u fududaanaysa in lagu yidhaahdo ii sheeg akoonkaaga imisaan kugu shuba waxaa meeshii ka dhalanaysa marka in warbaahintii qaarkood madaxdii lala heshiiyo mar haddiiba saxaafaddii ay noqotay warbaahin si gaara loo wada leeyaho private ah welihiin uu privateka ka shaqaynayo maalin hadda waxaa dhacday war ka baxayay warbaahin ku taala muqdisho ayaa laga sheegay waxyaabo lid ku ah dastuurkii idaacadda ee ku salaysan shaqsigii wax looga sheegay ninkii maamulka waxaa ruqsad la siiyey ninkii newscasterka ah farsamayaqaankiina ruqsad baa la siiyey laba kalaa la qoray raaligelin ayaa isla markii warkii laga daba akhriyay waxaana weliba la sheegay in shaqsigaasi maanta kadib uusan u shaqaynin xitaa warbaahintii baa laga sheegay magaciisa waxay noqotay marka kaalin horitaanka qayb bay ka ahayd waayo hadda haddii la dambiyo warbaahin siyaasaddan iyo burburkan iyo dagaalada waxbaa laga qaban karaa waayo haddii maanta aan la sheegin dagaalkii meel lagu qaaday oo maanta la booborin kasoo qabaada madaxweynaha soomaaliya iminka wuxuu ku sugan yahay afgoy warbaahinada qaar waxay soo qoraan madaxweynaha oo ujeedo gaar ah kale degitaanka afgoy maxaa keenay inuu madaxweynuhu xilligan uu dego afgoy ma loo qaadan karaa inuu Augusto u diyaar garoobayo intaasoo dhan waxay horinayaan dadkii qarannimadii ka soo horjeeday marka waxaan dhihi karaa wixii ka dambeeyey 2000 ilaa 2005 warbaahinadu horitaanka qayb ay ka هذا ما تنتين سؤال شو قدام بيس كنتي كبكبدا عن سي ودجرها إذا سينا يوحيتها حيت هاي تلاذا وجهدين إنسان ورياش الصومالية أنا بقول مرايا أنا عبد الناصر ورياش والسلام يا لمان ما قصدي جوجان وحان أطر دارمي ولا كاجا ورياه كلها شقة هو الجرا وناقيس وناقيس أقول ما كلها حيسيمة حتى فيلم كارنتيسة حتى فيلم مثل بعض ولا كاجا صحافة ولا الجرا كعن قبض نقطة كو استاجي ما أنت على هذا الباهم وشقيسهم الحمد لله حلي هذا وشقيني بعد صوم هيصل أسوي ليشين حتى دوني هدي واحد قبل شيء دعت كاي
waxa aad ku dhaanto ninka kale ee saxaafadda kaala shaqeeya laga yaabo inuu heshiis hooseeyo junior waxaad u kor wax u kor cabdullahi adiga ma had aad baad u mahadsan tahay ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan wariyaasha kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii ugu dambeeyey si gaar waxaan u salaamayaa maamulka Ifia Media markii aan usoo daadego wariyaasha waxaan leeyahay waxaa tiin walaalo isku meherad ah meel walba joogtaan iska warqaba waxaan si gaar ah farta ugu fiiqayaa wariyaasha Soomaaliyeed waxa idin yaala hawl gaar ah waxa jira walaalahayn gacanka gardaran ay dishay caruurtoodii iyo xaasaskoodii cid uma maqna Allah uma maqna waxaan idinka codsanayaa marka in meel walba aad joogtaan aad u gurmataan sidaad wax ugu qaban lahaydeen walaalihiin aad adeerada u tiin ubadkaasi berito waxay sugayaan waa idinka saaxiibkiin ayaa geeriyooday una gurmada ayaa dhihi lahaa fursadaasi tacsida ayaana kusoo gabagabeynaya dhammaan waxaan u tacsiyanayaa intii ku geeriyootay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho intii aan ka maqnaa dalka iyo intii aan joogayba waxaan leeyahay marka aad baad u mahadsantiin daawashada barnaamijka ومهدسن يهين ورياشي نقل قيب قاطي برنامج كني أها عبد الناصر أحمد الشيخ بشير سحن صحي إيو عبد الله محمد عمر بلوان وحنصدوا كله ومهد علينا يا فرسمي قانكي هجر لعانات محمود عبد الله حسين أبوكي ويسقوا حاجة كاميرا ذا يفرسم ذا إنجا عن سيء وحنصدوا كله مهد جاره وعلينا سو قد بنت برنامج كان وينوي سهلين هوتيل كنورو انترناشنال iyo shirkada Salaama Kashan Keri wasoo gudbintii iyo soo saaristii Mahad Maxamed Sheekh Mahad Stila iyo barnaamijka bandhiga Mahad Stila oo aan noqon doonin barnaamij looga hadlo wariyaasha iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed oo kaliya ayaa noqon doona barnaamij aan ku soo qaadan doono mowduucyo kala duwan intaan dib ka kulmi doono todobaadyada dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabad gel السلام عليكم ورحمة الله